baby fiir waxaad ka shakinaysaa qof ka hadlayo wax qalbigiisa iyo dareenkiisa ku jira oo already dhaawacan oo caawimaad dalbanaya ka shakinaysaa fiir bi Abbas wuu ilmeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh soo dhawaada dhammaan asxaabteena jecelnahay meel walba dunida ka joogtaan kuwi soo dhawaada channelkeena magacaygu waa Abbas Ilhaan soo dhawaada mar labaad sida aad title-ka ka soo aragteen maanta waxaan idin duubanaa muuqaal runtii idiga yaabin doona annaguna waxaan ugu talagalnay inaanu muuqaalkaas soo qaadano falcelin idiga bixino si aan idigu madadaalino dabcan waa madadaalo balse waxa laga yaabaa qaar idinka mida in uu muuqaalkani ku reebo dareen saameyn leh horta sida muuqaalka idiga muuqata meesha waxaa fadhida gabadh wax akhrisanaysa sidoo kale furna dhagaha ugu jiraan yacni jawi degan meel cafeteria iskaga qaadanaysa labadan qof laba qof oo isgaranaya ma aha waxa ay ka wada hadli doonaana dib aad ka ogaan doontaa Don't screw away. Hi. ninkan fadhiga uu meesha soo fadhiistay gabadhan xoogaa waxay isku dayaysaa in yacni wax ay qariibinayso dabcan adigaba hadda adoo meel iska fadhiya haddii qof iska kaa soo agfadhiiso si accident shil ah oo qofkan aadan garanayn waxaad isku dayaysaa in aad u banayso meesha oo aad ka durugto gabadhanna sidaasoo kale samaynaysaa waxay isku dayaysaa maadaama ninkan aysan garanayn uusan u ballaansanayn in ay ka durugto meesha oo u banayso No, don't screw away. Yeah, come. I'm sorry. This is I know this is really random. My girlfriend just broke up with me. Sorry about that. Yeah, like wuxuu leeyahay iga raali noqo waan ogahay inaan dee qof khaldan ahay balse dhibkay haystaa waxay tahay waxaa iga tagtay girlfriendkii yacni gabadhii saaxiibta ahayd baa iga tagtay qalbigayguna waa broken yacni waa niyad jabsanahay ninku hadduu niyad jabsan yahay gabadha maxaa ka qosay niyad jabkeeda yacni maybe inuu yacni helbi uu soo doontay caawimaad inay caawiso kale oo macquul suma okay laakiin iyada maxaa ka caawin kartaa bal noo daarag yeah, like it was like 15 minutes ago. And I was just wondering if you wanted to be my rebound. Just and then we could see where it goes, but dabcan wuxuu isku dayayaa inuu waa laga yaaba Soomaaliya iyada danka leeyahay waayo hadalka uu ku leeyahay waxay tahay waxaan jeclaan lahaa inaad dib iigu soo celisid ma garanayso iyadoo isaga xataa girlfriend waxba ma garanayso horta may baby day waxa jirta say hadda iyadu ugu soo celin kartaa gabadhii ma garanayso isagii ma garanayso dee say ugu soo celin kartaa adoo ninkan ujeeda noocay uu leeyahay kula tahay كلاني وحلا تاني كمان داعرة قلبي جيس يعني دعوان دوني إن عاويو دوني إن حكوش قرب أسيو. دي قبر سيو عاون قرتها قبر إن حتى قبر سيو عاون قرتها بنيكن يرفع سي يدو عاومات هتسوق يدو وسطون قبر أنا قرنين لا على قبر هتقرن يسوق استقانان عاومات وكرهين قرتها كدونا قرتها لكن قبر أيضا سكرين تجدي أرقد عاومات. عاومات بيورتو سخر بمنو فكرة مفيعنا عاومات واحدة من نقول قرتها قف كان إنه يساق حتى برتو قرب سي أو شوي كساره maybe عاومات ستاس هو نقول قرتها سوما. أنا حيلتها إني كان نسي خلطان وخلطان من الصعوبة. أنا لما. Are you sure? Because like I know you're like upset right now and stuff. Like. oh no, I'm very Is yes. that, like what you want? Yes. I really need this right now. I need a rebound. And I think that you're just the girl I'm looking for. Okay. Do you want my number and maybe you can like see it? Oh my god. Yeah. Okay. واو بيب سمعت هذا ها يعني wuxuu ku leeyahay gaar qurux badan ma tahay dabcan dee way iska shukaan ragama gaar qurux badan ma tahay si kasta waad caawin kartaa yani gabadhii dabcan wad u egtahay iyadoo kale marka si aad caawin kartaa waad caawin kartaa ayadu waxay ugu jawaabaysaa waxa doonaysaa yani oo jaalaan qala lambarkeeda ama adreeskeeda lambarkeeda ku sii wax saas miyaa doonaysaa
dabcan haa okay hadda mid aan ku fahansiiyo hadda ninkan aanu san kuu sheegay ninka si khaldan buu u socdaa waayo sabab gabadh baa qalbigayga soo jebisay annaga aan isjeclayn baa iga tagtay hadda adigu waa i caawin kartaa gabadhaydii baa hore iga tagtay baad u eeg tahay hadda waxaan arkaa qofkan qof weerar oo dee gabadhan no baby no adiga si khaldan aan fikirin wallaahi waa weerar may ani horta ma ku fahmaa may horta wax yar aan fahansiiyo ninkan wejigiisa qof dee macnii wax khaldan damacsan igalama eka idinkana dabcan sidaa aragtaan qofkan waa qof daacada wejigiisa may daacad kaba dheerba 1 second marka wuxuu u baahan yahay in garab la siiyo cilmiya may gabadha nin garab horta baby ma ku sheega qofka bini'aadamka qofka muxuu abaaraa markuu aqoon u leeyahay soo ma hadee qof darbi fadhiyood aduu aqoon u lahayn in la qabo in marwo tahay inaanay ahayn see intaa u abaarto aad welibana aad caawimaad uga dalban kartaa sababtoo ah isagu inuu waxaas niyadiisa ku degayso macquul qof kastaaba dunida wuxuu raadsadaa wax niyadiisa ku degaysa markuu dhaawacan yahay marka aan si fiirin okay Call him to work. I can't do that. Like, I have to work 2 shifts a week, and so, like, this is my only day I'm available. So, like, that's the only reason, like, I want to help you out. When are you gonna... wow baby fiir waxaad ka shakinaysaa qof ka hadlayo wax qalbigiisa iyo dareenkiisa ku jira oo already dhaawacan oo caawimaad dalbanayaad ka shakinaysaa fiir cabaas wuu ilmeynayaa baby day ku warame ninka raggi iyo gabadh siduu u khiyaamo xataa jirkiisa wuu u sari karaa okay baby waxa laba dhinac baa jira waa positive iyo negative haddii aan ka fiirino dhan wax walba haddii dhanka negative aan ka fiirino qofka ma dareemi karna dee runbaa fiican hadda qofkan isaga oo uu adkeysan kari laha yacni wax yar baan ku tusaya just 1 second ma garanayo meel aan tago yacni waa qof quus taagan qofka adduunka ugu jeclaa waaye qofkii isku haleynayay mustaqbalka ku riyoonayay waaye taagan heer uu qof uusan aqoon ka dalbado caawimaad meel fadhiya weliba uusan weligii arag baby in la istareemo fiican makleer halla eg dhigisa baby maanta marka aad dhibaato la soo kulanto qofka aad u ooyi kartaa waayo waa qofka de adig garab ahaan kuugu dhow dhibaato ahaan ku dareemi kara laakiin qof aanay de dantaada aan waxba ka soo gelayn intaad gidaar ugu tagto u ooy ilmo meel ay qabaan sabaano qof aan ii damqanayn aqoon aan u lahayn sabab reasonka ugu ooya muxuu yahay baby horta qof ma fiicno qof kasta sida adigu dabciyan aad tahay inaad ku cabirto waan ku baryaaya qof u ooyi karaa qof aanu garanaynin ma jirto ka odhe anuu hadda waxay la tahay ninkan inuu mishin gaara wato When are you going to be free? I don't know how much longer I can go. I'm so sorry. You know? I don't know how much longer I can get. Okay, waa sax waxaa ku sheegay dhigso hadda gabadhan suusan maaha horta gabadhan waa gabadh miskiinaha ahaatee dadkaba qalbi jileecada ilaahiisku in wada gelin ana gabadh ahaan dee gabadh nin saasoo kale cidlaygu yimaaday inkastoonan maxaa inagu ayn dad muslima nahay nin aniga banaan iigu yimaaday oo muxuu ahay dee maba caawin karanba ilaahay baa run jecel lacag waa ku caawin lahaa wax kasta waa ku caawin lahaa laakiin naftayda qof biniaadana kuma caawiyan ilaahay baa run jecel day haddaba gabadhani hadda imiga soo muxuu ahay ninka soo laabteeda mii gelin dee anuu waxaa arkaa gabadh jilicsan 100% oo daacada oo miskiinada oo soo dhaweyn fiican laakiin kama helin baan labadooda midnaba okay asxaabteena qaaligaan jecelnahay horta muuqaalka intan ku eegyahay isagu in yar haddaan kusii darno naga raali hadabto muuqaalka haddaan dheeraynay sababtoo ah waxaan la falgalnay muuqaalka dareenkiisaan la falgalnay haddii aan in yar kusii darno yacni muuqaalka noocan oo kale ah waa muuqaal runtii public emotional yani waa dareen public ah qof aadan garanayna meel la soo fadhiisato dan wixii gudaha ku jira la wadaagto waa geesinimo gaara qofkan aad caawimaad dalbato wixii aad kala kulmaysa aadan garanayn marka anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay ninkan inuu saxan yahay qof kastoo biniaadama waxa uu ku qancin karo ama uu farxad ka raadinayo inuu sameeyo xumaan ma sababto xaaladda ku jira keensa ilhaan aadna waxaad aaminsan tahay ninkan inuu wax kale damacsan yahay right
waan ku kala duwanahay fikirkaas sidoo kale waan ku kala ra'yi duwanahay laakiin idinku maadaama muuqaalka aad dhamaysateen waxaan idiga codsanaynaa qof walbaaba sida uu ra'yigiisa leeyahay inuu noo soo gudbiyo commentiga nagula soo wadaaga bal waxaas aniga iyo Cabaas horta bal nasoo kala saara waa mahadsantihiin saaxiibayaal dhammaantiin waa mahadsantihiin sida muuqaalkan oo dhamaysateen guud ahaan insha Allah tacaala waan idin soo dhaweynaynaa anaguna waxaan rajeynaynaa in agtiina kasoo dhawaano muuqaalo noocan haddii aad ka hesheenna noo soo sheega waa idiin soo badinaynaa haddii aad jeceshiina programka idin bedelno noo sheega waa idin bedelanaa just waayo idinkaan wax walba idigu nahay dabcan waxaan ku qasbannahay idinka inaan fulino ra'yigiina wax kastoo aad doonaysaan asxaabta qaaliga waxaan leeyahay waa idin jeclahay waxaan leeyahay YouTube-ka nagu soo dhaweeya inta aanu u subscribe noo saara waxaan leeyahay aad baan idin jeclahay dadkaygii muuqaalkan dareenkiisa wata haddii aad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalka noola garaysaan sababtoo waxuu naga caawinayaa like-tiinu in ay dad badan oo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ay muuqaalka daawadaan naguna soo fiiraan idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad YouTube-ka noo subscribe garaysaan nala socotaan dhan walba insha Allah waxaan isku daynaa waqtigeega ugu badan inaan idinka siino si aan madadaalo idiinku sameeyo inta muuqaalkan muuqaal lamida ama kasii qurux badan aan idiga soo diyaarino waxaan idiga tegaynaa asalaamu calaykum wa rahmatullahi